هاي صباح إلا شغال لقاربه والوسوح شيء سام دريمايو مشروع عبط بيجينك وايدين شيء مشروع قاعد شديد سابه وحيط طيب هذا العقربته فنانين تصوت تشكيلي فنانين تصادق لكن أنا قرصت معها أنا جو كل أوقات نوش يجلد لحاجة شفتو شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال الباجوكتان وسلام يا مكان كذا داونه. رنتي ولا له شلي دنتي ما أنت ساكن لسه عصي إلهي ورثه ونحرسته جناد فرتوس الله كيو إلهي دمدف يدعو أي نودرينا من فهمتي. أنت كده معتنا الله عافيه. كلي جيري حمام بدن بهاد ودوين هذا عندي كنا قبصتي. meel walbana laga ogaado qof walbana soo tacsiiyay walaalahayna shalay dhintay runtii geerida ku timaaday aad baan ugu xumahay gabadha walaasheena gabar iskaaf gaawan bay ahayd gabar aan dad hadal ku darsanin bay ahayd sidii inta taqaanay kulay dabcan ma noolo teeda halkaas ku arkeed shalay marka saakeena magaalada dhan isku tagtay oo wada baxday oo way halka joogay يبيحي مالها كدلو إيمان كربو ولا تجي وأنا سو أصي مركا تعلم ما ينجم مضان تهاي مقالة ده أنا حاجة تيك توك حاجة يوتيوب هذا أمبو وحاجة علان لهن هنا الريبوت كريسان أكون ده سأيلان هاد الريبوت كود قوتان قفل بو أركو الريبوت وهري وكده لأن أكون كهبدو كبحياة هبدو اللي أنا يدي الريبوت أساسي مركا مقالة ده أنا ما إن لصيفة فافيو day wanaagsanaayn iyo day xumaayeen ba fiicna in halkaas uga hartida fiican waa garabka kaliya ay noogu baahan tahay walaasheena maanta aan u qaban karnaa adduunka joogna ka dambeeyno ayaa taas ah marka halkaas ayaan ugu baxayaa adiga daawana xitaa u ducee faataxan u akhri faanteena umleynaya marka sabr iimaan Allah ka sii waardinteeda طبعا هذا وحان قالينا برنامج كهاي فرح كبير أي كسو هذا الشيء أرنك بيكي أي هذا فنكا سببته أوبح المحيطة هاي ما وذا دل عقوني سيات شرو ما در إله أوبح شرو ده والله وورر إذا أرنك سوج يسوم ساعة كذا سوشيال ميديا دان ساسو قصتي والله شيء فرح كبير سيم بدنا وامسلتو مهل مرة صوتو في ساوي هاي كود marka balaan sara in muuqaalkaas ay ka soo hadashay ay soo tiraaday arrinka BK okay waxa iskala fariintan walaalkay maxamed BK fariin u diraysa gabadha hay noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan waliba anigu aan ugu horeeyay fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan aragtay u dhageystay fariintaadi walaalkay waxa jirta arrin طبعا ولا شيء فرنتا سدي وناكسنتها ويدين سفري أي تهي فنكا كبحة فايدنا ملهن واحد كفايدة زنا ملهن آخرية دون بدو يديري تاس أي تفرنتيس إنك استوان فرنتيس في عنو أركن مسافرين كلاجوني أي تيانا ربيد ده واحد فعنا له كل واحد شيطان ومقولية كبحة الناس كذا بحضان إن لوك سيجر فايدة ما كينيس أوكي let's go marka fanka bixaysay ayaan horka fanka bixaysay arrin waxa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoos isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin maxaa arrinka hoos sida hoos la iskaga sheego fanaaniin ay saashan ku xawaaye hoos la ka digaltamayaan ya ilaahay idin saqiro guys hay okay qofkii ku weydiin lahaayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sida caadiga ahayd fanaaniintu la soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan bajeclaystay oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee la soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo korna gala socda BK gaarsiya su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda public aan kugu weydiiyaa insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo aftigay Axmed Beef okay marka arrintu su'aashay iyo arrinta ay weydiinaysa public baan kugu weydiinay dhahday arrinka soo jirna public baan kugu sheegayaa طبعا هذين public أروينا يجسوا جواب تدو كلامه أوكي بالعرن يدي أسقي أحمد بيف أرين كم ودرس أفريقيا كبيرة let's go guys هاي تهاي إنه ترى مشروع وحنا راشة مشروع إنه ترى سيد اللي عرفتري لها فنك يسوقان الصومالية هل عرفت له فايدة ولا مترتبة وحوها يو وأنا دمبي كأهين موياني مترتبة وحوها مترتبة فن بوحوها وبوقاسي ميوزيكاسي بودكاست موياني وحوها مرة الدنيا ذا يا آخر هذا بوكسيتينيا
okay mashruucaas waa mashruuc lacageed lacaga lagu soo qaatay wadaadda niman Soomaaliya wadaadda ah ka shaqeeya liiri niman wadaadda oo Soomaaliya ka shaqeeya liiri fanaaniintana qofka ugu horeeyay oo loo soo adeegsado oo dhinacaas laga soo maro dhinacooda laga soo maro oo mashruuca wax ka og sida la igu sheego waa inagu beenan dhodhooba ma jeceli qofka ugu horeeyay ee mashruuca madaxda ka ah oo wadaadada ku sii xiran inuu yahay abtiga Axmed Biif aan ii sheegay adigana lagugu tuujiyay oo sida lagugu qaaday waxa waliba la igu daray fanaankii inta mashruuca loo sheego uu ka gadmo waxa lagu xujeynayaa inuu fanaaniin kale soo tashkiiliyo waa barnaamij aad u wanaagsan ee ku saleysan tahay oo speaker fanka lagu cirib tiraya de walaalahayna heesaha qaadayaan oo isla dambi way ku jiraan baa laga saaraya arrinkaas uu fiican yahay aniga ahaantii uu fiican yahay laakiin dabcan ma aqaan qof walba isku fikir ma aha laakiin ani fikradii ahaan aad bay ila fiican tahay maanta hadii wixii adiga fanka aad maanta ka heleysay shilmaadka ka heleysay hadii mid qeyr qabo oo ka bax lagu dhahay wanaagii qeyr lagu siiyo shilmaadkaas waad ka baxaysaa wuxuu ku hay malaha kulli hadana lacag laga faa'iideyn waxaan laga faa'iideyn ma fahanteen marka ka raal noqda buuqbuuqana hada maqashaan guriga wuxuu u dhow yahay wada marka ka raal noqda marka muhiimadu waxay tahay marka aan ka hadlayno mashruucan maadaama uu yahay fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed in lagu cirib tiro oo lacag lagu soo qaatay waxaan rabaa inaan marka aan Axmed marka muhiimadu waxay tahay muhiimada wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BK ina tiraahay dar Ilaahay aan fan uga baxay qalad ay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo hadii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligeen anaga fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin that is another good point dhaqaale ma walaha fanka warun shilin uu leeyahay shilinka aad ka heshina si kulul kugu dhaafaya kuma raaxaysan kartid wax kuma qabsan kartid kama soo xajin kartid wuxuu yahay malaha طبعا gabadha walaashan say sheegayso waa run isma dhigi karo laakiin ninkan fanaanka asagana qaabku fanka ugu baxay uu dhahay Ilaahay dartiis baan ugu baxay de hadii uu sheedamadii wixii dhan iyo music ku dhex jiro ka dhax baxay oo xaq Ilaahay u jeestay oo wadaado ku dhex jiro oo Ilaahay soo hanuuniyay de asagtii qulubtiis inta aan la labay kala tahay marka laga yaabaa inuu Ilaahay bedelay laakiin in la dhaho qalad bay kugu tahay Ilaahay dartiis uga baxday waa ana ahaan ilama fiicno wala shay eraygaas laakiin qofka de ma dhigi karo shilma dartiis aan uga baxay wada kale oo sabab loo baxaa jirto marka sidoo afka ka dhahay Ilaahay inuu u rumeyn kara qalbigiisa intuu dhahay Ilaahay dartiis uga baxay Ilaahay qalbigiisa uu rumeyn kara oo tibtamada Ilaahay kuma soo celinayo ma fahanti marka aragnaa kin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaalay iiga shirantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku sameyn lahaydna ayadoo lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysaa adoon dhibtoonan haysin ka soo baxa inaad tiraahay horto saas inaad tiraahay saxsanay marka walaalkayo hadii uusan mashruuc jirin bal arkaya waxa la yiri maxaa la dhigi jiray waada iyo hebelo maxaa kulansi waa mahmaadaas waaweynka waaye ii sax cid taqaana ii saxdeed adigu waxa kulmiyay hebel xad kulmiyay hebel leemo ka soo ay iyo walba hebel maxaa kulmiyay ay BK mashruuca inuu jiro waxa anigu uga sii shakiyay oo aan ku sii aaminay xogaay علشان تشكيل انت هذا سائد واي أحمد بيفا برونو صوت ده هاي أو دور سنة فرحي راح والله كدريمة على تشكيل انت هذا وزائد تذكر هلا وعس عمله كلوا أحمد بيفا كلها حوض صوت ده وزوروري أيوة علاش بيها كو حريصنا أو حبرها يبه وما أنت اللي بدو حد يسنو شيء كلو وأضع حبط آيات قرآن أنا شيء كريم هذا ما طلعوا حيكون العلية فانك
كم سألتي والله بلا إلهي كم سألتي كم تلاتو كدري أبغى حبط قاعد أخبرني كلها أنا لا استغفر الله buu ahaay soo baxay ilaa shaqo lagaa rabaa waa lagu soo xujeeyey saan dareemayo mashruucaaba beginninkii waa idiin sheegay mashruuca qaadashadiisaaba waxay tahay haddaad lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin inaad qarsato ma aha annagoo kula ogaad noo sheegi lahayd lacagaa jirto soo yaac صيع لا jirta camal leena dhihi lahayd markaas ugulama yaabeen moogta marka walaalkay biigadhew yaaba heli karaba towbadkeen fanki iska daa aad ummadaasi ta kulansiiso caawa labada inta iska hesha israacdo aad dembi kugu filanba haddii uuba si kale xataa u ahaa waayo dembi oo qiil kasta loo raadsho fanka oo xataa muusiga la iska dhaafo la yidhaha muusiguna waa iska qurxinaysa la iska daayo dadka la isu keeno dhibka kaaga imaan kara marka waxay isku sameeyaan aaba dembi noogu fulay lacagteennana xaaraan kama dhigi kartaba walaalow marka adoo biikeeyo guri ka dhistay anigu fanka guri kama dhisan raasamaalna kama lihi adoo guri ka dhistay waxa aad uga maarantay baasa iyo qaadashadeeda waaye salaad cali jar wuxuu dhihi jiray lacag waa qaado markaa kamere walaahi gacantaa guutaay war la qarqari ma taqaanid ada guriga ka dhistay kula anayna guri kama dhisanin iyada shila gelayso soo celinaysa laga yahay inuu cutari waayo okay socodkuna waa anige yaa lacag waa qaadasho mashruucu waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid markaas hadduu mashruucu jiro mashruucaas waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid laakiin qishka si babliga u sheeg ummadana u sheeg ya towbadkeen with the baaso cidda diinaysa adigu inay jirto uma malay towbadkeen with the baaso ciddiisa jirta maraa kula maraa kamere laa ilaaha ila allah fanaaniinta soomaalida oo dhan waa wada qaxan qax horay ka qaadayan horay ka dafayan horay just like that والله بالله قاعد دبس غودي halkaas ku dhamaada barnaamijkii walaasheena ay sheegaysay farxad kabeera waxay dhahday barnaamij oo lacag mise toobakeen oo lacag lagu sii raacay horta ma jirto faante dadka public uga dhigay taayanta BKO kiligaaga iyo dadka hoosoosiga soo guraysa daa ana dhiis ilaahay dartiisa fanka uga baxay ma faante marka waxay ahaataba horta fanka hadii laga baxaayo kolay cid ka baxayso cid niidooda ku jirto inay ka baxdo isla markaas de ilaahay waxaan ugu bareynaa inay ka baxaan oo dib damban ilaahay ku soo celin music iyo qabacdi shaydaan madaas waxas ilaahay inuu ka saaro mafahant marka hadii beesa lagu siinaayna dee waan ku sii khayr allah uga dhigo waa fahanteena maleyna marka walaasheen waxay dhahday beesada hoos lagu siina public ha laga dhigo fanaaniinta dhan ha ogaadaan ha ka wada baxaanay mafahant marka halkaas ayaan idinku salaamay waana salaamatiin goodbye insha allah oday waa soo jeestay idinkana share ta badiya waa fahanteena maleyna muuqaalno waalin way soo socdaan musalsal aada search film nolosha dunida ka hadlayna aado Allah guys